وعبارشنتي يقدر دقيقة يعني كمرد مانada TV-ga caalamiga ee Somali News waxaan ku horgalnay xaaladda uu ku sugan yahay garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo oo labadii sano ugu dambeysay xaaladiisa laga deerinayay Ceergaabo waa caasimadda gobolka Sanaag waxa ku nool dhalinyaro aad u tiro badan dhalinyarada gobolka Sanaag 80% waa dhalinyaro ku xidhan sportiska haddaba marka aad timaadid xayndaabka garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo waxay indhaha ugu qabanayaan qashin aad u fara badan oo soo buux dhaafiyay xayndaabka garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo waxaana saaxadda dhalinyarada ka maqnaa labadii sano ee u dambeysay wasaaradii dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag si kastaba ha ahaatee waxa dawladda hoose magaalada Ceergaabo ku xareysan hooga cagaarna ee ugu deeqay madaxweynaha haatan xilka ka sii degaya Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo oo aan wali la dhigin halka shanta gobol ee kale la dhigay hooga cagaarna waxaana dhalinyaradan aan kula kulanay garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceergaabo ay madaxweynaha cusub ee dhawaan loo dhaarin doono Soomaaliland waa Muuse Biixi Cabdiye inuu wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha u soo magacaabo shakhsi wax ka fahmi kara dhalinyarada iyo sportiska bahdi sportska gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waxay ka mid tahay 6 caasimadood ee Somaliland gobolka Sanaagna wuxuu leeyahay qurba joog ciyaartooy iyo madax dawladda hoose waxa ku xareysan roogii cagaarana ee loogu tala galay stadiumka Ceergaabo run ahaantii waxaan oran lahayn anagu stadiumkani ma noqon doono haddaan dawladda iyo madaxda iyo qurba joogtu dhalinyarada gacanta ku qaban qurba joogtii aanay u dhiiranaan dhalinyarada gobolka Sanaag wuxuu noqon doonaa ceel laga waraabiyo dadka abaaruhu saameeyeen haddii kale dawladda hoose dawladda Somaliland madaxweynaha wasaaradda ciyaaraha wax ka qabo hal nin baa mushaar ka qaata oo sidoo kaliya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha khaasatan madaxweynaha cusub inuu il dheeraada ku eego sportska gobolka Sanaag waayo uu ka dambeeyaa gobolada kale waxaan ugu baaqayaa garoonkan waxa loo madaxweyne Siilaanyo siiyay roogii cagaarna gobolada kale dhammaan waa loo dhigay laakiin gobolka Sanaag uu ka dambeeyaa gobolada kale waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha cusub inuu wasaaradda u magacaabo nin waxgarada oo aqoon u leh ma aha in uu soo magacaabo mid qabiil lagu keenay ama reer intaas basacada u dambeysay imika ayaa gacanta laga jari doonaa runtii kii degmada Ceergaabo aragtaan inaan meesha ahayn meel kubadda lagu ciyaaro oo marka roobka ay fariistaan oo sida balliyada kale aan noqdo runtii nasiib xumo markaas aan ka hadno gobolada kale iyadoo ay marna la soo siiyay roogii oo loo dhigay runtii waxaan ka codsanayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha inay aan ku adkeeyna dhalinyarada gobolka in markaas garoonka loo soo jeesto markaas aan saan ugu harin dhalinyaradii asaaga ay ahayd markaas hadalka waxaan ku soo koobayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo hadalkayga quseeya in xoogga saaro daal stadium runtii ka muuqdo lagu daro garoomada kale halana la gaarsiiyo gobolada وعنان عبد الرشيد علي تلفزيونka caalamiga ee Somali News magaalada Ceergaabo